cilmigeeda laakiin dhowr iyo 10 daqiiqo soo socda insha Allah waxaynu ka hadli doonaa afar arrimood inta waqtigu noo saabaxo midda u horeysa waa bishan xukunkeeda ama miisaanka iyo mansilada ay bisha Ramadaan iyo soomkeedu ku leeyahay islaamka dhexdiisa iyo midda labaad oo ah fadligiisa midda saddexaad oo ah cibaadadan wixii dhaawici kara ama jabin kara iyo midda afraad oo ah waxyaabaha inoo bannaan bishan dhexdeeda ama aan dhib lahayn in la sameeyo dadkuna laga yaabo inay ka shakiyaan bishan xukunkeeda marka la eego waxay tahay waajib way sii dhaafto waxay tahay farad way sii dhaafto waxay noqotay arkaanu islaamkii arkaan islaamka tiirarka islaamku ku taagan yahay weeye ilaahay baa wuxuu fi suurati al-baqara ya ayuha alladheena aamanu kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladheena min qablikum la'allakum tattaqun dadkii shahaadanayay ilaahay rumeeyay buu rabbi u yeedho wuxuu waxa la idinku waajibiyay kutiba waa erayada tilmaamaya xukunka waajibka ah ee faralka ah bisha Ramadaan soomkeeda la idinku waajibiyay sidii ummadii horeba la idinku loogu waajibiyay wax idinku cusub baaha waxa laga helayana ilaahay uu sheego waa la ka cabsi iyo taqwa nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis dhowr abu kaga hadlay bishan xukunkeeda miisaanka ay leedahay inuu farad yahay laga maarmaanay in la soomo waxa cadeynaya xadiiskii Bukhari Muslim ku sugnaa min xadiis Dalha ibn Ubaydillah waxa asxaabigaas nin baa nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam ninkaas su'aalo dhowr uu nabiga weydiiyay waxa kamid ahaa soom muxuu ilaahay ugu leeyahay aniga waxaad ii sheegtaa soomka inta faralka ah marka nabigu wuxuu ugu jawaabay shahru ramadaan bisha ramadaan baa kugu waajiba illa an tatadawwa shay'an inaad sunna la timaado mooyaan ramadaan wixii ka soo haray waa sunne marka sidii buu ninkii ku tagay marka xadiidkaasi wuxuu nabigu ku cadeeyay bisha ramadaan soomkeedu inuu yahay soom faral ah laaninka nabiga wuxuu weydiiyay soomka faralka ah daliilka saddexaad xukunkiisa cadeynaya waxa way xadiidkii ibn Umar uu warinaya caanka ahaa Bukhari Muslim ku sugnaa buniya al-islaamu ala khams islaamka waxa lagu dul dhisay oo uu ku taagan yahay shan tiirarkiisa arkaan islaamka ah waxa kamid ahaa soom Ramadaan bisha Ramadaan soomkeeda tawxiidka salaada zakada soomka xajka marka soom Ramadaan من أركان الإسلام تيرك الإسلام كوكتاعين يهويه وحكلوا يسقونا شنادو دليل كما أفراد عسيا عضينا يا ونقنا يا حديث كعان كأسد حديث جبريل المتفق عليه البخاري مسلم كسقنا ملك جبريل باوي من رسولك صلى الله عليه وسلم وأصحابتي سيلا فرديا مركا تلمامية تعليمات بوسيي سيدنا بيقول مركي دمبل هوا ملك جبريل أو يديبي سيقول دينتنا يدين برايا أركان الإسلام كي بالنبي جويدية وكتشوابي أركان الإيمان كي وكتشوابي هي إحسان كي يسمى فرق وكتشوابي وحين نقص عنا أركان الإسلام كي هي حديث كاسي وكل رأي صوم كبشر رمضان مركا الدليل هذا قرآني حديث بله وحين نوشي جيان قفك عبادة إذا كتجا يسوق وكسيا يسوق وحضر دار اللهين قفك مسلم يهي إن أنو إسلام كي وحبه ورهبين أو سكودا إنه كنت كتشرا بشر واحد لا ده فضلي أمر الصوم كرمضان فضلي بولاي هاي سيدا وحصة حديث صحيحة من حديث أبي بكر رضي الله عنه نبي يقول شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة لما براد ما نقصامان نقصانكم بعضه ولما براد العيد عيد رمضان هي عيد بشهر العيد الحجة لما معنى علماء كفر السيرانو أجري قودو أدبو لما يستريه وقفك بشهر رمضان صوم أجري سو لما يستريه بشهر عرف الله إلى مد الحجة قفك حج كلا يمي أجري سو لما يستريه إلا لو ترك إسلام كذا كتير لبض بلاد وعكلا لو قفر السيري لبض بلاد مرقلا ما وضع ناقصان أو توما ما وضع نوضان وهذه بالكمدها إدمانته
bisha ku xigtaa dhammaystirmaysa haday ramadaan dhimato waa in bisha kale dulxija iyadu dhammaystirantaa haddii dulxija naaqis tahayna ramadaan baa dhammaystirmaysa tafsiirkaana waa la saaray waxaa ka mid a xadiidka fadliga bishan sheegaya bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan xadiidka caanka ee marar badan maqasheen min xadiidi abi hurayra nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu u bushaarayn jiray ummadda waxa khayrka ah ee ugu soo kordhay buu ugu bushaarayn jiray wuxuu odhan jiray ramadaan baa idin yimi oo bishii barakaysnayda soomkiisu ilaahay waajibiyey albaabadii jannadaa la furayaa kuwii naartana waa la xidhayaa shayaadiintiina waa la xidhayaa macnaheedu waxa weeye fadligu inoogu bushaaraynayaa bishani ay leedahay marka qofka intaasi isugu hagaageen ee albaabadii khayrkuna u furan yihiin albaabadii sharkuna ay ka xidhmeen waa nacasnimo hadduu